ubax soo bixiyo waxaa tahay ilays wah eegmada uroon uurkaa ku tago wah amar alle haddaan aqal wada galno ubad ii dhasho ambaqaadka nolow ayatiinka wacan udubkiisa noqo عجائب ammaanada jacayl ha idlaynayne واه ibtilada kaloor axdigana adkee ambadiyuu noqon wadayaal kulanto wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaa idin leeyahay cabaysnimo wanaagsan ramadaan mubaarak caawa barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti ku ah mid ka mida abwaanada da-da yar ee ku nool waddankeena soomaaliya walow barnaamijka dhinaciga qaybta bidix oo xigo walaalkiina qaaliga ah walaalkiina saadaam cajabiinho saadaam cajabiinho bal waxaa xasuusisaa daawadayaasha waxa looga baahan yahay ما شاء الله عاد وين مع المويو وسلامة هذه أصحاب تحرن شمالك توفيق في المس هذه الله هاي رمضان مبارك بيرك استقبل ميدا تعالى إذا أتك جوتان مروا بو حاج عشين إن أنا هركينا يعني أنا قاعد وجعلنا هاي واحد كيشين أنا كحلنا واحد كهلنا أنا كما حلنا إن شاء الله وحاجين هنا هو بنيستو هنا نقوم waa mahadsan tahay cajabiin hoo saaxiibkii qaaliga ah aad baa u mahadsan tahay abaanka magaciisa ase ayaa noo sheegi doona haddii allah daraale ka aado abaane uu horeyn barnaamijka kusoo dhawaad maasha allah ku dhawaa barnaamijka boqolkii boqol adigoo magacaa ku bilaabay magacayga oo dhammaystiran waa maxamed axmed xasan oo ku magac dheer bilyimiin aada u mahadsan tahay run ahaantii markii aa maqlaysay abaan soomaalida waxaa waaye meel weyn ayuu kaga taagan yahay bulshada soomaaliyeed fariimo wacyigelin ah fariimo qurux badan oo dadka u gudbiyaa abaan goormee abwaanimada bilaabay maasha allah abwaanimadan horta abwaanimada waxaa waaye wax loo dhishta waaye marka abwaanimada aniga waxay igu dhalatay 2010 xaggee baa joogta markaa waxaa joogay dalka soomaaliya caasimadda muqdishoa joogay muqdishoa joogta abwaan sida abdulqasuulaan abwaanada waa u dhalasho dadna way bartaan adiga dadaa kaga dayatay oo dhaxal aboomiya mise waa mida adiga u barato waa u gasho iskuul maya waxaa iskuul u gala maahan abwaanimada waxaa waaye wax dhaxal ahaan aan u hela waaye marka kulley waalidiinteeda ka dhexlasay ila tahay abwaane sida maqaalka ku hayno magaca abwaan soomaalida markay maqan aad bay u istaagaan dareenkooda u kacaa abaan haddii aan mid ah ku weydiiyo heestaada kugu horeysay magaceeda ahayd heesteedii ugu horeysay waxaa la yidhaha ila qaybsa caashiqa aad waa hees jacayl ah anigaa curiya heesta laxankana anigaa saaray isla adigaa lahaa waxa dhan waa markii ugu horeysay oo aan hees curiyo waa markii kugu horeysay heestaada meel maslax in lala tegay oo lagu luuqay heesteeda maya aan lagu luuqayn laakiin weli waxay dhex taala istuudiyadeeda dhex taalaa weli laguma luuqayn laakiin waa hees micnaha la sameeyey oo la diyaariyay muusigeedeed waxa dhan laga shaqeeyey mafahanti si fiican marka waxaa loo dadayayaa fanaankii kusoo kala kici lahaa maya fanaankii waa u dhiibay oo micnaha heesta waa muusigeedeed waxa dhan waa loo habeeyey laakiin mar dhow insha allah muuqaala loo sameynaa loo sameyn doona gobol hadduu ilaahay insha allah aad weyn abwaane waxaa barnaamijka martida mikrofoonka ee tawfiiq films ayaa laga daawanaya waa si wanaagsan dad badan ayaa ku daawanaya waxay leeyihin abwaanka bal muxuu caaba abwaanka ka sheekee doona abwaane horta abwaan imisan jira maasha allah su-aal in laisweydiiyey loo baahnayo weydiiso aad weyn maadaama nin dhalinyar aad tahay weliba aada u yar tahay ee dad badan ay ku taamayaan su-aashaan abwaanka ugu yaryihiin da-diisa maasha allah aniga waxaan jiraa 25 sano weli waa yar tahay abwaane fanka ilaa herka ayaa ka jeceshay inay ka gaartid fanka ilaa insha allah waxaan jeclahay inaan meel sare ka gaaro maqaam sare oo fanaaniin caana oo heesaa u dhiibo dhalinyarada intii fanka jecel waa soo dhaweynayaa welcome aa leeyahay abwaane wareysigaaga dad badan ayaa caaba dhaxal ahaan u daawa doona bulshada ku daawanayso inta badan waxay iskugu jiraan dad abwaane ah iyo dad fanaaniin ah adiga abwaanku waxay isleeyihiin bulshada balyoo taageera abwaankoona kaga dayda fanka soomaaliya
wallaahi saaxiib macaani abwaanada waa badan yihiin abwaano soomaaliyeed oo caan aan leenahay oo midba midka kale kasii daran yahay marka kolley aniga abwaankaa taageero waa abwaan hadraawi oo nin culus oo caan oo dadka soomaaliyeed aad u jecel yihiin abwaanada kamid yahay marka kolley abwaankaas aa taageeraa aa ku daydaa marka kolley waxaa waay abwaanimadana isaga macnaa xaggiisa inaa waxaa jeclahay heerkoo gaar inaa ka gaartay haa abwaane abwaan hadraawi waa abwaanka aad taageertay maasha allah abwaan bal ma jirtaa heesaha aad hubisay tira ahaan meeqay gaarayaan ilaa iyo 10 ilaa iyo 5 ilaa iyo 15 ilaa iyo 20 ilaa iyo 6 imisay gaarayaan dad badan ayaa dhahayaan abwaanka imise hees ayuu dharayay walow yar tahay haddana bilow aad tahay maasha allah waa been maahan macnaha nin daayaro macnaha social media oo weli aan caan ku noqono macnaha fanaaniin waaweyn hayso aa u dhiibinaa tahay ragga marka hadda kulley oo fanka jecel oo soo baxaayo hees u dhiibay adiga ilaa dhowr waxaa sameeyey ilaa 25 heesood oo jecel ah iyo daadis iyo heesa oo macnaha aroos ah mafahanta si fiican marka daadis iyo jacayl iyo aroos marka hadda heesta daadiska hees oo sameeyey 2018 oo daadisaa jirto miraheeda wax ma noogu sheegi kartaa abwaan maadaama dad badan ay dhahayaan abwaanka maadaama intaasba hees oo sameeyey batiradooda ilaa 20 kor u dhaafayaan bal mid caawa hanoogu buuqeena waa dhamaatay heesta daadiska heestan tan kugu fudud soo qabso qiso waaye oo macnaha saaxiibkay ahaa ka sameeyey oo in badan jacayl u hayo qofka daba wareegayay si fiican marka kulley qoftii uu jeclaani qalbigiisa way ka baxday qoftii marka dib u soo raadisay waa ii sheekeeyey waa qisada markaan ka dhageysta u sheegay heestan ay usoo dhacdaa sameeyey aan qoray adiga qoray inkastoon kuraad show ku rafaaday caashiqa kaa raysan waayo kaa daba roceliyey rajadaan lahaa iyo hankayga riiqdee jacaylka ribada maaraadkiisa joogta wah 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 marka in badan heestaas waa hees macnaha ka hadlayso qof wax jeclaayo markii jacaylkiisa macnaha uu bandhigto oo ka dawareegay in badan oo lagu fahmi waayo kadibna qofkii uu jeclaayo asaga dib kasoo jeclaado aad weyn asagana oo ka tashtay cajaa'ib marka inkastoon kuraad show ku rafaaday caashiqa si fiican macnaha jacaylkaa kuu qaba inkastoo macnaha ku rafaaday dhibaatadiisa iyo macnaha raadintaa ku raadinayay aad weyn kaa raysa waayo kaa dabaruclay macnaha oo rafaad badan aan arkay oo macnaha cajaa'ib 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 inaba caadi maha afkaaga marab iyo caano galaas rajadaan lahaa iyo hankayga riiqday jacaylka ribada maaraadkiisa joogta macnaha ani hankaa kaa lahaa waaba dhacabo waaba dhacayba jacaylka hore markaad hadda ku taagan tahay jacaylkii hore oo aniga oo xaggay ka dhamaaday adiga ku taagan tahay waa mar aniga niyadda aan kaa saaray yah aad weyn marka cajaa'ib 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 waa inaba caadi ma aha abwaanagu qaali ah hadda hees waxaa jirta uu saaxiib macaani 2019 sameeyey oo hees jacayl ah si fiican oon rabo inaan macnaha in fanaan ahoo macquul oo macnaha oo kasoo baxi kara si fiican heesta magaceeda waxaa la yidhahdaa jamiila jamiila wah wah hadda jamiila waddada noogu soo jirta daawade waxaan jeclaana inaa ku tixinaa doontid janalkeena tawfiiq filmis haddii aad daraad abwaanada asaagaaga iyo dadka adig u taageero halkan maxaa ugu baaqaysaa dhammaan maasha allah abwaanada asaagayga iyo dadka i taageera dhammaan waxaa ugu baaqaya dadka i taageera waxaa leeyahay soo dhawaada abwaankiina waaye abwaanka adinkaa kor u qaadi karo adinkaana hoos u dhigi karo abwaanka waa abwaan daayar waxaa la gacmo wada jiray wax ku qabtaan qof keligiis meel isma geeyo marka kulley aniga dhalinyarada soomaaliyeed waa soo dhaweynaya meel walbay joogaan abaane haddii inkastoo barnaamijkii gabagaba oo yahay oo qaybihii dambe aa kusii shaqeyno abaane fanka soomaaliya maanta heerku gaarsiisanya waa la ogaa heer waxaa jirto hees qof oo qaaday inay ahayd qof kale oo qaato oo dib u qaato taas oo waxay ahayd meel sharci oo kala ilaaliya oosan jirin dadka heesahaasi dhaco ama abaanadaas noocaas u dhaqmo maxaa ugu baaqaysaa waxaa ugu baaqayaa dadkaas
inay iska dhaafaan waayo sharafta fanka kuma jirto qof heesuu leeyahay in la qaato waa sumcad xumo maadaama ay kusoo badato wadankii maadaama ha fanka ay kusoo badatay marka abwaanada waa dhowan yihiin abwaanada in la tago macnaha laga faa'iidaysto heesaha macnaha heesihii hore macnaha hore loo qaado macnaha fanaan uu ku luqeeyo waa iska caadi taas wax dhibi ma laha laakiin hees nin uu macnaha sameeyey in la qaato macnaha oo jidka lagu galo waa qalad oo magac lagu raadiyo magaca lagu raadiyo waa mamnuuc waa qalad marka dhalinyarada soomaaliyeed taas inay ka ilbaxaan oo macnaha nin walba hees asaga uu leeyahay oo magaciisa uu qorantaa uu kusoo caanbaxo qof walba heesaa lagu tilmaama soo maa si fiican si fiican si fiican si fiican fanaan walba marka waxaa waaye hadduu ilaahay insha allah dhammaan waxaa ugu baaqayaa inay macnaha abwaanada la xiriiraan dhalinyarada soomaaliyeed fanka jecel heese ayaga ay leeyihiin ay qaataan dhammaan insha allah abwaanada hadda soo baxayna waxaa jeclaa inay dadaalaan dadaalkooda hore usii daraan dhalinyarada soomaaliyeedna garab istaagaan taasaa ugu baaqaya abwaane su-aasheeda ugu dambeeya haddii aan ku weydiiyo abwaan benyamin dad badan waxay dhahayaan maadaama abwaan uu yahay weliba da-yar uu yahay fanaankoo jecel yahay fanaaniinta soomaaliyeed kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii bersamaadka maasha allah horta aniga fanaaniinta dhexe waxaa ka taageeraa cawaale aadan aada u weyn fanaankaas jubbajaanka soomaali ah ninkaas aad taageera waa fanaan aad waqtiga weyn maasha allah fanaan waan jeclaa heesiisa fanaaniinta hore fanaaniinta hore maasha allah waxaa ka taageeraa hanuuniye hanuuniye maasha allah boqorkii codka hanuuniye waay allah naxariisto rabbi naxariista janno allaha siiyo naxariis anaga dhan oo u baahan hadduu ilaahay insha allah amiin dadka allah naxariista markay maqlaan waxaa umalaya qofka inuu dhinta le abwaane barnaamijkii gebagabada ayaan soo gaarnay dhamaadka saadaam cajabin maadaama garabkayga aad tahay barnaamijka furiisan aad tahay bal amaanka maxaa soo weydiinaysaa caawa maadaama fursad oo noo siiyey inaan caawa soo furiisano kaamirada horteeda iyo janalkii tawfiiq films stuudio iyo caawa oo dhex fadhiyo maasha allah aada weyn haatan wixii su-aal loo baahnaay adigaa hore u dhahaba adigaa iswada racsada inkastoo aniga aan wax ayaan isinin adigaa ugu faa'iidaystaba maasha allah aada weyn wax badanna siima raacinaya hal su-aalaa sii weydiinaa abwaana ma jirtaa qiso adiga kugu dhacday wax ka samaysa hees waa mid loogu fadhiyo caawa cajabiino waa ku galay waa jirtaa aan su-aasha ugu dambaysa barnaamijka lagu xiri lahaa may waa sidaas maasha allah waa jirtaa hees aniga igu saabsan oo dareen gooni ii leh oo anigaan sameeyey hees waa hees jeceela heestaas yar waxaa u dhiibay oo saaxiibo nahay marna qaraabo nahay oo ismaaciil booska ay dhahayeen aada weyn oo markii uu soo qaaday heesta waxaa la yidhaahdaa heesta inta la gudi inta la gaarin qisada soo koob in yar ka soo qaado qisada jecelka ha iyo qisada waxaa waaye gabar yaroo macnaha da-yaraan jeclaaday aada weyn muddo xiriirkeena socday marka waxaa waaye qoftii waa iga tagtay macnaha noo beledka isla joogna waa ka dhaqaaqday waxay tagtay Ethiopia marka anigana nin jecel haya iska xoogaa waxaa uga fikiray qoftana waa xiisay macnaha in macnaha dib inay usoo laabo doonto inay hor usii socon doonto si fiican sheeg marka mirahana maskaxdeeda kusoo dhacay aada weyn waa miraha sidee ahay ubax soo bixiyo waxaa tahay ilays waa eegmada uroon uurkaa ku taga waa amar alle haddaan aqal wada galno ubad ii dhasho amba qaadka nolow ayatiinka wacan udubkiisa noqo cajaa'ib ammaanada jacayl ha idlaynayne waa ibtilada kaloo axdigana adkey ambadyu noqonne macnaha jacaylkii iyo macnaha xiriirkii iyo macnaha cishqigii iyo xiisihii iyo jacaylkii waxaan soo wadnay ambadyu noqone macnaha yoo dhumin allah cizig afkaaga caanimada qamo yoo qabi maasha allah waxaan filayaa in lagaaga jawaabo su-aasha saadaam cajabin gabagabada barnaamijka ayaa si soo wada gaarnay dhammaan daawadayaal intaas waxaa noogu dhag barnaamijkii quruxda badnaa oo aan soo wadna tan iyo markii noo yimid fanaankeenna nagu qaali ahaan fanaan soomaaliyeed fanaan benyamin barnaamijka ayaa intaas noogu eg mar kale iyo mar saddexaad waxaa leenahay saaxiibada haddii janalka ku cusubtahay subscribe like commentiga share dhammaantiina waa xaggeena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu abaan aada u mahadsantahay maasha allah okay